munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen ku dhawaad 90 arday isuguna jira wiilal iyo hablo isla markaana ka qalin jabiyay maxadada Abubakar Sadiq iyo qaybta hablaha ee maxadka Al-Khayr waxaana munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ardayda qalin jabinaysay waalidiin culimaawidiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay tirada ka baxaysa maamulaha maxadka Abubakar جامع صالح ديرية يوم معاملة قيبتها بلا معك الخير وحالك ما أنت كقرن جبين يا كنتن يسدير قبلات يا صقال يا لباتن وحويان إنن أو أحمرك سديتن يتطلع أرضي أيام ما أنت هالكن فديا إن أرضي داسو مدة 4 سنة أيي وحسوب برانيين isla markaasna lagu soo tabcayay ay u soo soconayeen inay maalin walba faa'iideystaan wax qayb kamid ah shariicada diinta islaamka sida la og yahayna ama calaamada macadka labada macadba ku qoran waa macad lagu barto shariicada diinta islaamka lagu barto isla markaasna ardaygii marka uu dhameeyo uu gelayo jaamacadaha wadanka gaar ahaan kulliyadka shariicada ee lagu barto diinta islaamka mudanayaal wax la tarbiyadeeyo oo la habeeyo waxa ugu qiimo badan bini aadanka iyo dadka wax la barana waxa ugu qiimo badan shariicada diinta islaamka marka halkan dhalinyaradan aad aragtaan ee halka fadhida quruxda leh waalidkood baa ku soo tabcay macallimiintoodii iyo maamuladoodii baa ku soo tabcay si ay u soo saaraan dhalinyaro nadiif ah macadka Al-Khayr taariikhdii la furay waxay ahayd 2008 waxaana ka baxay maanta ay halka inoo fadhido dafcadii 8aad waxaana markaa macadka lagu bilaabay 2 galaas oo ah fasal awal iyo fasl markaa tamhiidiya maantana macadku wuxuu marayaa markaas 12 galaas waqtiyada la dhigtaano marka waxa weeye gelin hore iyo gelin dambe oo 2 waqti laga dhigto bacda duhur iyo bacda casr ba waxaan markaa ayana u tahniyeynayaa ardayda markaas maanta qalin jabinaysa waxa iyagu halkaasi ku soo bandhigay khudbado la xiriira cilmiga ay barteen qaar kamid ah ardayda نحمد ونشكر بعد حمد الله تبارك وتعالى وشكر جميع المشاركين في هذه الحفل المبارك الذين يتكونون من المسؤولين والضيوف وآبائي الأكارم ضنين به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكون قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقدم العزم سيف الهرم ودع ما استدعت فضول اختلاف وأكل والنوم وغول يدم استكلنا waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin tiro badan kuwaasi oo ardayda u hambalyeeyay lana sii dardaarmay marka aniga ku hadlaya kulliyadda shariicada ee jaamacadda Golis waxaan idin leeyahay jaamacaddu si buuxda ayay idin soo dhaweynaysaa waxaan la doonayaa cilmiga geedigiisa inaa halka ka sii wadaan inta kadib aniga hadalka soo koobaya sanad kasta jaamacadda Golis faraceeda Argabo gaar ahaan kulliyadda shariicadu waxay dhiirigelin u samaysaa ardayda ka soo qalin jabisa labadan macahad iyo macaahidda magaalada qaar kale oo kamid ah dhamaantii waxaan leeyahay midhihii aad beerteen maanta aad guranaysaan dadaalkii aad bixiseen waqtiga dheer ee 3 sanadoodana maanta ayaad guushiinii joogtaan waxaan leenahay hambalyo waqtiyada la dhigto duhur iyo galab ayaa la dhigtaa waxaan kale ugu bishaareynaynaa bulshada in lagu soo kordhinayo ama hadda lagu soo kordhiyo qayb aroortii subaxiya macadka Al-Khayr isaguna waa saas oo kale 3 waqti duhur iyo casr iyo aroorba waa la dhigtaa marka waxaan si gaar ah dadka ugu taakiidin lahaa inay ka faa'iideystaan waqtiga xaleenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba hambaliyo aad ilaahay cilmigiina markaas waxa weeye haydin barakeeyo baabka cilmiga ayaa joogtaan waxa weeyaan cid idinka sareysan ma jirto
laakiin qof waliba wax uu sii faa'iideysanayaa jaamacaduna waa meel kasi aqoontiina intaa kasi badan laga sii dhisayo waqtigan aynoo ku yimi guryaheennii marka nasiib waa naga nasiib badantiin oo ardaydii hore wax laga yaabaa inay meel fog u doonan jirtay jaamacadaha iyo laakiin idinku nasiib wanaag gurigiinniba idinku timi mid walba iyadoo nooc kasta fanni kasta aad ka baranayso marka aad iyo aad ha loogu dadaalo baan leeyahay jaamacadana saa u gelahaydeen la barto ka qaalisan diinta ma jirto idinka oo shareecadii hadda ka qalin jebinaya gelina doona jaamacadaha shareecada lagu barto aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaadna aad baan idinku halbalyeynaya waxaa laydinka baahan yahay inaydin u diyaar garowdaan jaamacadaha ama kulliyadaha aad tegi doontaan inaydin sida ay tahay u qaadataan duruusta waxaana la doonayaa waalid ahaan iyo shacab ahaanba reer argab inaynu fahanno inay macallimiintani ubadkeennii wax barayaan oo gaar ahaan diinteennii barayaan oo ku tarbiyeynaya waxaynu inagu ugu jecelahay in ubadkeenna lagu tarbiyeeyo inay inooga duwanaadaan wax kasta oo kale oo laga shaqaysto wax kasta oo kale oo laga shaqeeyo oo la geliyo juhd iyo xoog inay inooga duwanaadaan baa la doonayaa inaynu sidaa u dareennaa la doonayaa mar labaad waxaan leeyahay macallimiinta iyo maamulka macaahidaba ilaahay cilmigiina ha idin barakeeyo ilaahay mansilo sare oo waxa weeyaan taa aad maanta aan idin joojinay ka saraysa ilaahay idin joojiyo macallimiintu waa noo dhisan waxaan leeyahay waa u ducaynayaa idina waxaan leeyahay haddaad tihiin ardayda waxbaa soo barateen horumar baa idinka doonaya horu socotaan waxtarka ardayda tartaan waa la ogyahay waana ku fiicantihiin haddaad 2 iyo 3 baa ilaash ka dhigtay noo kordhiyaan duleena wax badan waxbarashada sidii la sheegay waxa ugu qiimo badan qofku markuu barto cilmiga cilmiga samaawiga waxa weeye diinta iyo shariicada islaamka ah ayaa ugu qiimo badan cilmi la barto waayo wuxuu ku barayaa oo ku dhaweynayaa khaaliqii ku abuureedka inaad macrifad u yeelatana wax ka qaalisan ma jiraan oo aad rabbiga garato iyo diintaada waan idin bogaadinaynaa boqolaal baa ka soo baxaya iskuulada kuwaasna adinka idin sugayaan runtii ka wasaarad ahaan annaga farxad bay noo tahay dugsiyada ama maxadada dhigaya daraasaadul islaamiya iyo diinta dhigayana waan barbar taaganahay waana garab taaganahay waan bogaadinaynaa gabagabadiina waxaa isaguna halkaasi ka hadlay kusimaha barasaabka gobolka Sanaag ahna barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan maxadkan alkhayr dhammaan macallimiinta waxbaray ardayda tan labada maxad iyo jaamacadda Golis hambal yaa ilaahay ardayda qalin jebisay labada maxad ee Abubakar iyo alkhayr runtii waxay idinka muuqata waxbarasho fiican iyo akhlaaq fiican sida aad wax u barateen aad uga soo baxdeen kaalinta waxaan ku rajo weynaa inaad kaalinta kale ee ku soo aadana aad sidaas oo kale uga baxdaan idinkoo haysta dalkiinni jooga magaaladiinni Ceelgaabo jooga iskuulkiina ka yahay jaamacadiina kan tahay nasiibkaas waa nasiib aad wanaagsan oo haysta gunaanadkiina waxaa munaasabadaasi shahaadooyinkoodii lagu guddoonsiiyey ardaydii qalin bedelatay halka ardayduna ay maamulkooda iyo macallimiintooda ay ku maamuuseen shahaado sharafyo iyo abaalmarino kale. Siciid Muuse Faarax, Telefishinka Badda Cas TV, Ceerigaabo.